gudoomiye degmo xildhibaan wasiir gudoomiye baarlamaan siihaya madaxweyne iyo siyaasi caan ah Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe waxa uu 15 Abriil 1956 ku dhashay degmada Xudur ee gobolka Boqol waxbarashadiisa 1969 waxa uu xifdiyay Quraanka Kariimka isagoo sii wata waxbarashadiisa dhinaca diinta ilaa iyo sanadkii 1980 oo uu qaatay shahaadada koobaad ee jaamacadda markii uu dhameeyay takhasuska shariicada islaamka way aragnimadiisa shaqada iyo maamulka sanadihii u dhaxeeyay 1980 ilaa 1990 Sheekh Aadan Madoobe waxa uu waqtigiisa ugu badan geliyay ganacsiga kadib waxa uu weecday dhinaca siyaasadda iyo maamulka isagoo noqday gudoomiyihii degmada Xudur Sheekh Aadan Madoobe oo caan ku ahaa raadinta nabadda iyo dhismaha dawladnimada Soomaaliyeed ayaa sanadihii 1995 ilaa 2000 waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii waqtiga geliyay in Soomaaliya ay yeelato dawladnimo heshiis lagu yahay waxaana uu ka mid ahaa xildhibaanadii soo dhisay dawladdii carta sanadkii 2000 markaas oo Jabuuti lagu doortay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan halgankiisa dawlad dhiska maamul wanaagga iyo horumarinta bulshada isaga oo sii wata ayuu Aadan Madoobe ka mid ahaa hormuudkii shirarkii dib u heshiisiinta ee Eldoret iyo Embagati ee mar kale lagu dhisayay dawladnimada Soomaaliya Aadan Madoobe ayaana dawladdii uu wax ka soo dhisay ka noqday wasiirkii cadaaladda iyo garsoorka waxa uuna wasaaraddaas maamulayay muddo 3 sano ah horaantii 2007 dawladnimada Soomaaliya oo khilaaf siyaasi ah iyo dagaalo urur diimeed wajahday ayaa qaaday wadadii isbeddelka kadib markii Aadan Madoobe loo doortay gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa Aadan Madoobe ku ammaanay sida uu u maareeyay kala guurkii dawladnimada kadib markii mawjadihii khilaafku sababeen inuu kursiga baneeyo madaxweynihii xilligaas mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed kolkaas oo gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe noqday siihayaha xilka madaxweynaha Sheekh Aadan oo ka jawaabay mas'uuliyadaha culus ee uu saaray dastuurka dalka ee ah in doorasho uu dalka geliyo ayaa bilowgii 2009 hormuud ka noqday mar kale dhabihii nabadda isagoo oo dalka ku hogaamiyay inuu yeesho dawlad wadaag ah si loo qanciyo mucaaradkii waqtigaas waxaana magaalada Jabuuti lagu soo dhisay dawladdii uu madaxweynaha ka noqday Sheekh Shariif Sheekh Axmed taas oo yadadiiro gelisay shacabka Soomaaliyeed oo ku jiray xaalad quus ah Aadan Madoobe oo isna mar kale loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa halkiisii ka sii waday xoojinta baarlamaan xor ah matala shacabka dejiya sharciyo hagaagsan kuna shaqeeya shuruucda iyo dastuurka dalka oo aan marna ku milmin siyaasadda danleyda waxaana si weyn loogu xasuustaa Aadan Madoobe kaalintii uu ku lahaa go'aankii cuslaa ee baarlamaankii uu gudoominayay ay ku laaleen heshiiskii isafgaradka ahaa ee ku saabsanaa badda Soomaaliya ee Kenya sheegatay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ah siyaasi aan tan iyo bilowgiisii siyaasadda marna lumin saameyntiisa hadda waa musharax u taagan gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad waxaa loo arkaa hogaamiye daacad ah dabacsan ilaaliya maamul wanaagga leh wadaniyad si fiicanna u yaqaana la macaamilka dadka iyo isu haynta dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si gaar ah siyaasiyiinta kaalintiisa nabadoonnimo oo ay aragnimadiisa iyo sidii uu soo maamulo baarlamaanka iyo dhammaan awoodihiisa hogaamineed ee xildhibaan Aadan Madoobe waxa ay xujo duldhigayaan xildhibaanada cusub ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad oo haddii ay u hiiliyaan doortay dastuur iyo sharci